magaalada Lewiston gobolka Maine dalka Mareykanka waxaa ka dhisan koox dhalinyaro Soomaali oo ciyaarta kubadda cagta oo uu leeyahay tababare Cabdullaahi Xirsi Cabdi. kooxdan ayaa intooda badan waxay ka ciyaaraan dugsiga sare ee magaalada Lewiston, waxaana ka qaybgalkooda ciyaaraha magaaladaasi uu soo jiiday magac bulshada Soomaalida oo markii hore aan laga soo dhaweynin gobolkaasi. wariyaheena Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa tababare Cabdullaahi kula kulmay gobolka Ohio, warbixintan ayuuna noogu diyaariyay. halkani waa gudaha garoonka ciyaaraha dadan ee magaalada Columbus oo sanad kasta lagu qabto ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalida Mareykanka. kooxaha goobtan ku loolama sanad kasta waxaa ka mid ah koox ka timaada magaalada Lewiston ee gobolka Maine. kooxdan waxaa la leeyahay Cabdullaahi Xirsi Cabdi oo hore u ahaan jiray gudoomiyaha guddiga xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya. Cabdullaahi ayaa tan iyo sanadkii 2006 waxa uu deganaa gobolka Maine, waxa uuna tababarayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Lewiston. shuruudaha maaragtay ardada aan ku qaato waxaa ka mid ah 1 akhlaaqda, 2 iskuulka in maaragtay AB inay yihiin, haddaanay ahayn inaan waqti ka qaado ma jeclo because waalidan ahay waa dareemi karaa muxuu ahaa aadaabtooda iyo muxuu ahaa iyo dhinacii muxuu ahaa waxbarashada. labadaas arrin hadday ka soo baxaan waxa waaye horan u qaataa. tababare Cabdullaahi Xirsi Cabdi ayaa rumaysan in ciyaaraha kubadda cagtu ay bulshada isu soo dhaweeyaan, waxa uuna arrinkaasi ku sababeeyey sida ciyaartoyda Soomaaliyeed ee u ciyaarta kooxda dugsiga sare ee magaalada Lewiston ay u bedeleen aragtidii laga qabay Soomaalida gobolka Maine oo markii magaalada soo degayeen horaantii qarnigan uu duqii magaalada ee waqtigaasi dalbaday inay Soomaalidu ka guuraan magaaladiisa. maalin cad in maaragtay madax doofaar maaragtay masaajidka in lagu soo duuro meeyarkii markaas inuu yiraahdo muxuu ahaa kabihiina bannaanka uga soo taga asagoo kale dhaqankiina iyo diintiina iyo waxyaabahaas maaragtay. ciyaartoyda dugsiga sare ee Lewiston oo badankood uu soo tababaray tababare Cabdullaahi Xirsi Cabdi 90% ay Soomaali ahaayeen ayaa sanadkii 2015 waxay ku guuleysteen ciyaaraha dugsiga sare ee gobolka Maine. sidoo kale sanadkii tagay 2017 ayay mar kale ku guuleysteen koobka ciyaaraha dugsiyada, waxaana taasi ay keentay in bulshada Soomaaliyeed ee mar la lahaa magaaladeena nooga guura in hadda il kale lagu eego loona arko inay yihiin kuwa magaalada iyo gobolkaba sumcad u soo hooyay. haddii ay shalay ahayd naga guura talow maanta xaalku waa sidee? maantana muxuu ahaa waxay ictiraafsiin muxuu ahaa Soomaalida inay yihiin Soomaali maaragtay muxuu ahaa dad dhaqan fiican leh, dad maaragtay muxuu ahaa isdhexgalka ku fiican. haddadan dhalinyarada iska dhaafay Cabdullaahi guura hadday maqlaan waxa waaye ma qiyaasi kartid wallaahi. hal arday oo naga soo guuray oo Minnesota u soo wareegay ma qiyaasi kartid say oo mataqaanaa u waxayna ay u soo sagootiyeen oo anbabixiyeen. tababare Cabdullaahi Xirsi Cabdi ka sokow inuu tababaro dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Lewiston, sidoo kale waa tababaraha kooxda ciyaaraha kubadda cagta ee dugsiga dhexe ee Lewiston Middle School. ciyaartoyda uu soo leyliyey ee 2 koob la qaaday dugsiga sare waxaa ka mid ahaa 2 wiil oo uu dhalay, sidoo kalena wiilashiisa midkood ayaa iminka waxa uu ka tirsan yahay tababarayaasha kooxda dugsiga sare. tababare Cabdullaahi Xirsi Cabdi sababta ugu weyn uu waqtigiisa ugu horo tababarista carruurta daadoodu u dhaxayso 5 ilaa 18 sano jir ayaa waxay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Lewiston ay dhaliyaan goolka guusha ee nolosha. marka arrinta aniga taargetkay 1 maadaama oday aan dhaqankooda mar had iyo jeer aan kala hadlo in ay dhuminin dhaqankooda, 1 2 inayna dhuminin afka Soomaaliga, 3 in maaragtay muxuu ahaa asaagooda ay wax la qaybsadaan jaamacadaha maaragtay iskuulaadkaas oo free scholarship maaragtay ay helaan. waxaan intaan u gelinaya waxaa waye mustaqbal maaragtay berri in maaragtay muxuu ahaa maadaama qaali ay tahay dhinaca waxbarashada lagahooda inay ku helaan. gobolka Maine waxa uu ka mid yahay gobollada la isku yiraahdo New England ee ku yaala waqooyi bari ee dalka Mareykanka, waxa uuna ka mid yahay gobollada ay sida rasmiga u degeen dadka Soomaaliyeed. macallin Cabdullaahi iyo xirtiisa kubadda cagtuna uma eka mar dhow iyo mar fogba kuwa meel kale u qalab qaadanaya. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.